Deeqdan maanta la gaarsiiyay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ka timid dowladda Sacuudiga iyadoo ay ka faa'iideysteen boqolaal ruux oo baahiyaha gaarka qaba kuwaa oo laga soo xulay degmooyinka gobolka Banaadir. Basma Caamir Shakeeto oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir ayaa u mahadcelisay wasaaradda caafimaadka sida ay ugu heelan tahay wax u qabashada dadka qaba baahiyaha gaarka inay caawiso kuwaa oo ku dhaqan magaalada Muqdisho. Mudane wasiir sidaad u jeedid deeqdan waa deeqdii wasaaradda caafimaadka ee soo gaarsiisay gobolka Banaadir wajeeradii boqolka xabba ahaa oo loogu talagalay dadkii ku noolaa baahiyada gaarka qaba gobolka Banaadir sidaad u jeeday dadkii mudnaa deganaa degmooyinka gobolka Banaadir ayaan ku wareejinay annagana sidaa noogu wareejisay deeqdaas oo kaaga timid dalka Sacuudiya waxaan leenahay ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo cid walba oo soo dhiibatay wasiir adigana waxaan ku leenahay dadaalkaaga iyo firfircoonidaada iyo hawsha wacan aad u haysid ummadda Soomaaliyeed aadan kaaga mahad celinayna haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir waxaan leenahay inkastoo dad walba oo dadkan gacan u geysan lahaa ama u maciini lahaa waxaan leenahay iyagana dadka dhibaataysan ku nool gobolka Banaadir aad iyo aad ay u farabadan yihiin mudane wasiir sidaad u jeedid hadda waa 100 qofood laakiin dadka ku nool caasimadda waa 3 milyan ugu badnaana ee aad iyo aad u dhibaataysan sida indhahaada ku arkaysid caruur yar yar ku jiro haweenaa ku jiro waayeelaa ku jiro marka waxaan rajaynayaa iyagana inaan wax badan ka qaban doontid intaad aragtay hadda waxaan rajaynayaa insha Allah gobolka Banaadir wuxuu har iyo habeen u taagan yahay sida wax loogu qaban lahaa bulshada ku dhibaataysan caasimadda gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abiykar ayaa sheegtay in deeqdan ay ku filneen dadka ayna jiraan dad kale badan oo baahiyaha gaarka qaba kuwaas oo wasaaraddan ay ku dadaalayso inay ka haqabtirto waxyaabaha sida gaarka ay ugu baahan yihiin. mucaawinadan saad sheegtay waxay nooga timid wadanka Sacuudiga aad iyo aad ugu mahadsan yihiin sadaqa jaariya Ilaahay ha ugu dhigo waa u jeednaa inta qof oo maanta iyo inta kale ka badan oo maanta soo gaari weysay ay يعني waxtari doonto hadii alla idmo wali ma dhow waa ognahay sidaad sheegtay xamar waa ku kornay waa ku dhalanay waa gobolkeeni in 3 milyan iyo ka badan qof ay ku nooshahay baahidooda gaarkana ay ka badan tahay meelaha qaarkood annaga il gaaran idinku fiirinayna sababtoo ah waa meeshan waxa ku dhaqan bulsho weyn caafimaadkii aad iyo aad u liita meelaha qaarkood diyaar waxaan u nahay oo aan u dhaaranay inaan annaga meel walba horta Soomaaliya ah iyo meel allaalo dadkeena ay joogaan aan wax ka qabanno gobolka Banaadir baahidiisa aad u weyn tahay waa isku dayeena wax walba oo karaankeena inaan aan u qabanno. Gudoomiyaha degmada Waabari ee gobolka Banaadir Mahad Cilmi oo kamid ah gudoomiyashii madasha joogay ayaa bogaadiyay dadaalka maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda ay deeqdan maanta ku gaarsiiyeen dadka qaba baahiyaha gaarka ah degmadiisan ay ku soo aaday ilaa 5 ruux. Waa santihiin marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir oo na soo gaarsiiyay gaariga loo yaqaan wheelchair-ka oo ay ka faa'iideysanayeen dadka nacagaha la ama curyaanka ah runtiina aad baan uga mahad celinaynaa degmo ahaan anaga waxaan soo gaartay ilaa 5 qof. Ibrahim Xaaji Yuusuf telefishinka Tusmo magaalada Muqdisho.